waa shumac amaba ilays 15 milyan ee Soomaalida codkeeda ku maqashiisay ereyada iyo laxamka luuqdeeda macaan lagu ladhay. jacaylku intuu ay dhigto idhansadayo iraray ana dhiraha u sida fanaanada Sahra Axmed Cabdilaahi Sahra Ilays marka laga yimaado fankeeda xuduudaha ka talaabay waxay dunida la wadaagtaa horumarka wadaniyada iyo qadiyada soo danjirsatay ee Jamhuuriyadda Somaliland waxayna ugu gudbisaa kaalmaheeda suugaaneed. ciidankii dalkeen raliyo caruur culimada samaan cawda u dhigeen ka caajisiyo Sahra Ilays oo sidaasi u geysay qadiyada Jamhuuriyadda Somaliland waxay hadda xaalad caafimaad u joogtaa magaalada Hargeysa. maalinta Sabtida ayaana qalliin dhanka xameetida ah lagu sameyn doonaa haddii Rabbi idmo. fanaanada Sahra Ilays oo in badan ka mid ahayd fanaaniinta ciidanka qaranka iyo kuwa wasaaradda warfaafinta ayaa dhawaan laga joojiyay mushaharkii ciidanka qaranka markii ay heeso ammaana u qaaday xisbiga mucaaradka ee wadani iyo musharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. afkaar habtiyo shirgudoon le xisaabtan adag xildhibaan afkaar habtiyo shirgudoon le xisaabtan adag xaqiiqe ma yiraahdan xogka lama jeertayo kasweeyaan cirana xukunkeena hagaajin kara. Sahra Axmed Cabdilaahi Sahra Ilays oo aan la xidhiidhay ayaa waxay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ka codsatay inay u soo duceeyaan inuu Rabbi u dhib yareeyo qalliinka ay gali doonto. Axmed Sek Ibrahim, telefishinka CBA, Hargeysa.